agaasimihii hore waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdilaahi Yaasiin Diiriye ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xilka qaadistiisa waxaanu iska difaacay eedo loo jeediyay agaasimaha oo telefishinka bulsho kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu xilka qaadistiisa ku sababeeyay inay ka dambeysay hor istaag uu ku sameeyay wasiirka waxbarashada iyo sayniska agaasimaha oo telefishinka bulsho ugu waramay magaalada Hargeysa waxa uu xilka qaadistiisa ku sababeeyay inay ka dambeysay hor istaag uu ku sameeyay wasiirka waxbarashada oo doonayay inuu dhalangadi ku sameeyo manhajka waxbarashada Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay waxa weeye waa eray aan laga fiirsanin ereygaasna iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay taqaan aqoonna ii leedahay intii Soomaaliland jirtayna aan gacanta ku hayay manhajka waxbarashada ee Soomaaliland in uu waxa soo kale iga sheego waa mid subxaanallah marka ana naftayda xaal siinaya markuu waxa soo kale iga sheegay manhaj aan soo xambaaraan anigu garanay meel uu ka soo xambaaray oo dusha laga soo dhisay secondaryyaasha oo afshiiniiska iyo Faransiiskana caruurta lagu baraayo ayaan doonayaa dalka inaan ka fuliyo oo aan manhajkii hore dhalangediyo waxaan ku yiri manhajka aad dusha ka samaynaysa ee secondary ka soo bilaabaysa waa geed sarawaab manhaj hadii la samaynayo waxa laga soo dhisaa salka halkaad ka soo xambaaratayna marka hore waa inaad ummadda la tashataa ilaa ummadda ayaa manhajkan leh noocyadeeda kala duwan bulshada reer Soomaaliland ayaa leh manhajkan wasiirna ma laha aniguna ma lihi طريق baa loo maraa marka manhajka cusubna la samaynayo taas waa ta koobaad ee aan kaga horimay ee uu aad iyo aad u diiday ee uu igu nacay ee wax kasta oo la tashiya dhinac iga mariyo talabaadna waxa weeye markuu taa ogaaday wuxuu sameeyay anaaba la taliyaal keensanayay xafiiska manaahijta waxba kama qabaan la taliyaasha uu keenay laakiin waa inay dariiqa xaq ah waa in ay maraan oo ay u maraan dhalangadiga manhaj cusub oo la samaynayo xafiiska manaahijta waxaan ku wareejiyay xafiiska imtixaanaadka daawudna woogiy waa ka marxaat madaxda wasaaradda oo dhammaan waa ka marxaat waayo WhatsApp-ku noo soo dhigay ma aha arrin aan ka been sheegayo wasiirkayga waxbarashada ee Axmed Maxamed Diiriye waa wax xaqiiqo ah weeye iyadii taa kale manaahijtan ka sheekeeyayba oo iyana uu badka noo soo dhigay oo uu soo dhigay WhatsApp-ka dhinaca kale waxa uu agaasimuhu ka hadlay buugaag aan waafaqsanayn manhajka Soomaaliland oo lagu dhigayay qaar ka mid ah dugsiyada Soomaaliland buugan uu ka hadlayaa ma aha buug Soomaaliland samaysatay buug waxbarashadu samaysatay ma aha buug xafiiska manaahijtu sameeyay ma aha buug heema samaysay ma aha waxa weeye waa buug supplementary ama kaaba waxbarasho oo buugaagta Ingiriiska ah oo aan textbook ahaan loo dhigan ee loo dhigto kaaba ahaan ayaa loo dhigtaa caruurta wixii ay uga faa'iideynayaan ayaa looga faa'iideeyay laakiin diinta Kiristaanka loogama dhigo waalidiinta ubadka dhigo oo dham way ka warhaysaa inaan meesha diin Kiristaana loogu dhigin buug Kiristaana aan loogu dhigan 5 sanadood ayaa buuga uu sheegayo ardaydaas looga faa'iideynayay inta anfacaysa daawud woogay in labada buug midna lagu sameeyay muraajaco midna uu kii hore asalka ahaa yahay ka muraajacada lagu sameeyay wixii qaldaad ah oo dhan baa laga moogtay shaandheeye ama laga moogtay guray oo lagu bedelay wax sax ah marka waxa waan hayaa wax allaala wixii laga bedelay oo dhanna buugaagta dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada dhexe dhammaantood buug kastaba wixii laga bedelay gacantan ku ayaa xafiiska manaahijta yaale marka buugaas oo wixii laga bedelay aan ogahay waa maxay labadan buugaan isku mid ka ahayn waxay isugu mid noqon waayeen midna waxa lagu sameeyay muraajaco midna waa kii hore asalka ah ee qaldaad ku soo baxeen oo buugana 2 sanadoodba imtixaanka lagu qaadayo daawudna uu og yahay buugaagtii aad sheegtay aad tiri imtixaanaadkana waa lagu qaadi jiray dugsiyada mafasax bay u haysteen mise fasax la'aan bay ku dhigi jireen maya waa buugaagtii sharciga ahayd weeye kaliya waxa meesha ka maqnayd laga ursaday waxa weeye labada buug isku midna ma aha waana isku taariikh Cabdilaahi Yaasiin Diiriye oo hadalkiisa si wata waxa wasiirka wasaaradda waxbarashada ku eedeeyay inuu furtay xafiisyo aan munaasib u ahayn wasaaradda waxbarashada markii wasaaradda yimid xafiis labaad oo rasmi ah buu ka dhigtay
oo uu kula shiro ciddii uu si gaara doonayo inuu ugula shiro hadday hay'ado yihiin iyo hadday madaxda wasaaradda waxbarashada yihiin halkaa way ka yaraa dadban tahay wasaaraddii weynayd oo had iyo jeer moogta aan jaanis laysa siinahaynin marka halkaasuu door biday inuu arrimaha in badan ku moogtahay kaga shaqeeyo hadday gelin dambe tahay iyo hadday gelin hore tahay iyo hadday habeen tahayba oo uu boodhkana ku dejiyo meesha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo boodh labaadoo meesha ah marka waa arrin jirtaa shaki badan bay runtii keentay xafiiska labaad halka ku yaala mar aanu wax ka weydiinay wararka sheegaya in la qorsheynayo in la mideeyo manaahijta waxbarasho ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan ogahay oo kaliya wasiirku markuu nala soo hadal qaaday ama nala soo hadal qaaday agaasimayaashayada oo dhan ee uu barta WhatsApp-ka noo soo dhigay arrinta in ay isla markaana ay dawladda Soomaaliya iyaduna ay soo jeedisay inay bedelayaan manhajkoodii oo ay manhaj cusub samaysanayaan marka ma hubo inay xiriir wada leeyihiin aan lahayn xilka qaadisaga kadib ma la xiriiray wasiirka meel lama xiriirin runtii wuxuun baan ku baraarugay waxyaalahan beentan uu dhigay hawada cid walba caalamka ay arkayso ee ay maqlayso Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa.